laga yaabaa 8 qodob inaanad hore u ogeyn. subaxa jimcaha ka hor inta aanu soo muuqan ka ah qorraxdu, dhammaan makhluuqa oo dhammi way aamusaan iyaga oo isu diyaarinaya afuufidda suurta iyo in qiyaamuhu dhaco, marka laga reebo bini'aadamka oo isagu qaflad ku jira. marka uu ibni'aadamku geeriyoodo timihiisu waxa ay sii wadaan koritaanka muddo dhowr bilood ah. marka uu qofku miisig dhegaysanayo, jinka kuwiisa xun iyo shayaadiintuba waxay ku soo xaadiraan hareerihiisa iyaga oo boodboodaya oo jaasaya. haddii qofkaasi la tusi lahaa muuqaalkaas iyo waxa hareerihiisa ka socdana, naxdin ayuu u dhiman lahaa. isaga oo bini'aadamku dhintay ayuu haddana dhaqdhaqaaq ka socdaa qaybta bidix ee maskaxdiisa muddo 7 daqiiqo ah. maskaxdiisu waxay isku dayaysaa inay dib u soo celiso xusuusihii hore iyo dhammaan wixii uu qofkani soo maray. udgoonaheenni Muxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, marka uu malakulmowdku nafta ka siibayo qofka, waxaa la hor keenaa camalkiisii, ha xumaado ama ha samaado marka aad huruddo waxaa laga yaabaa inaad ku dul seexato gacantaada ama sameel jidhkaaga kale ka mid ah, kadibna uu istaago qulqulka dhiiggu. markaas maskaxdu waxa ay ku tusinaysaa riyooyin cabsi badan si aad hurdada uga kacdo oo aanay gacantaasi naafo kuu noqonin. waxaa laga yaabaa in saqda dhexe sabab la'aan u kacdo 2 ama 3 jeer. waxaa laga yaabaa in Rabbi ku jecel yahay oo uu rabo inaad barrido wakhtiga uu samada koowaad ku soo dhowaado. waxaa la sheegaa in malakulmowdku uu maalintii ku soo fiiriyo 360 jeer, isaga oo Rabbigiis amar uga sugaya inuu nafta kaa qabto. ku ducayso oo ku dadaal inaanu kaa qaban adoo macaasi faraha kula jira. salliga rasuulku waxa uu qaadaa murugada, warwarka iyo culayska nafta. wakhti rasuulka lagu salliyana waxaa ugu khayr badan habeenka jimcuhu soo galayo. miyaanay kugu filnayn in adiga Rabbi kugu salliyo 10 jeer? allaahumma salli calaa sayidina wa nabiyina Muxamed wa calaa aalihi wa saxbihi wa sallam.